بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaynu la soconaa inaynu ku jirno maalmihii khayrka lahaa barintana ay tahay maalintii iidka maantana iyo ayaamihii ka horeeyana dadka intiisa badani ay sooman tahay hidda carafeenu maanta barinta galeynaa imika waynu ku dhex jirnaa marka ugu horeysa dhammaan shicibka reer Somaliland siday u dhan yihiin dhammaan gobolada dalka ku nool dhammaan daafaha adduunyada dabadeedana ku nool waxaan u soo jeedinayaa hambalyadii ciidda carafo waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair. ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in iideeda aynu ku wada gaadhno inakoo nabad qabna inakoo horumar intan ka badan gaadhnay inakoo maxaan ku idhaahday ubadkiina iyo idinkuba dhammaanteen aynu wada caafimaad qabno inaynu ilaahay u ina gaadhsiiyo ciidda ku xigta. waxaan aad iyo aad hambalyo gaarana u dirayaa dhammaan noocyadeena ciidamada qalabka sida ee maru kasta habeen iyo maalin aad iyo aadka ugu howlgan nabadgelyadeena iyo difaaceena qarannimadeena iyaguna aad iyo aadka ugu howlan. waxaan leenahay iyaga iyo xaasaskoodaba ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair. qarankiina u shaqaynaysaan waxaan rajaynaynaa in hawlihiina sii laba laabtaan. waxaan idin rajaynayaa ciidda ku xigta inaad dhammaantiin inaynu ku wada ciidno nabadgelyo tan oo kale ah ciidda ku xigta. had iyo jeer waxaa caadi ah oo daayarta dhalinyaradu ay caado ka dhigteen una baahan yihiinna cidina aanay ka mamnuucaynin in maalmahan oo kale ciidda maalmaha feestooyinka ee dabaaldega inay dalxiisaan oo qaarkood waxay tagaan badda qaarkoodna waxay tagaan maxaanku dhahday magaalooyinkay tagaan oo magaaladay degan yihiin bay ka yimaadaan oo magaalo kale ay tagaan. dhalinyarada waxaan leenahay kow marka ugu horeysa waqtigeedii baa joogtaan laydinkama mamnuucayo lahase ahaatee nabadgelyo darro fara badan bay keentay maalmaha dalxiiska aad samaysaan wadooyinka shilal fara badan baa ka dhaca. shilalkaasna dee qadar allana way jiraan hase ahaatee taxadir xumo fara badan baa shilalkaas ay ku dhacaan. gaadiid aad iyo aad xawle aad iyo aad u dheer ku socda ayay tagaan. badda shilal baa ka dhaca iyadoo maxaanku idhahday aan dabaal la garanaynin baa badda la galaa. dhalinyarada waxaan leenahay dhalinyaronimada fudeydkeedu yuu idin qaadin. badda ha laga taxadiro wadooyinka maristoodana ha laga taxadiro mar walba sida sharcigu odhanayo. sharcigu muxuu odhanaya wadada qiyaas baa lagu maraa sharci baa lagu maraa. badda marka la joogo nidaam baa loo dabaalanaya. waxaan ku dhahdaye haddii aanad garanaynin cid garanaysaa la raacaya. deegaanka aad tagteen baa maxaan ku dhahdaa la isu sheegaya. waxaan doonaynaa inaynu mar walba caqligeenu si taama u shaqaynayo. safarada marka la galayo taxadirada lagaba maarmaanka waa in la sameeyo. qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 15 eber. maxaa ku dhibay isticmaal samtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo. maxmiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, mayfai, geel, ari,
dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 4 gees. Nasiib wanaagsan.